okay bismillaahir raxiim aan si soo dhawaada waxaan rabaa inaan sii wado marka waxaan ka soo baxnay declare garaynta variableska iyo waxaan ka soo baxnay data typeski iyo si loo declare gareeyo waxaan ka soo baxnay wali weyn la soo daba socon doonaan hadda maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodobka ku xiga oo ah gelinta marka programka wax la gelinayo computerka wax la gelinayo si loo geliyo waxa la isticmaalaa in oo lagu hormariyay c marka la isticmaalayo c intan ama sintan waxaa la isticmaalayaa waa gelin computer marka rabto inaad variable wax soo geliso marka variable ka qiimo siinayso variable ayaa waxaa rabtaa inaad siiso value waxaa ku furan saddex wado marka koobaad inaad dhahdid wuxuu la mid yahay 10 koow marka labaad inaad dhahdid variable wuxuu la mid yahay ka soo qaado kale x assignment yaal dhaha kalba lafti assignment way laakiin meel kale ugu soo shubaysa kaas waa toos kana laakiin waa explicit implicit loo kala qaada kan waa toos kana waxa waa xogaa luqluuqa u mar meel kale tan ka soo qaadanay hadda kan oo kale macnaha hadaan dhaho x waxay la mid tahay aan dhaho x waxay la mid tahay 10 variable wuxuu la mid yahay x qiimihii ayaa u kala wareejinay ama inaan dhaho maxaan ku dhahayay variable wuxuu la mid yahay asagoo la soo geliyo macnaha soo geli inaan isticmaalo markaas oo aan dhaho geli inaan dhaho geli oo seenu gelinayaa inaan dhaho soo geli labada calaamadood isticmaalina x inaan ama var inaan marka wax soo gelinaysa marka inta badan labada processor jiro assignmentigaas iyo oo labada kore assignmentiga isku soo duub iyo midan hoose oo ah maxaan ku dhahay using ama entering from the keyboard al dhaha qofka waxa waaye inta badan program su'aalan soo dhigi doona aan leenahay macnaha maxaan ku dhahay see adoo soo gelinayo adoo keyboard adoo user ku ogolaa inuu soo geliyo adoo keyboard ku soo gelinayo waxaas dii lagu dhaho variable kana la isticmaalaya markaas aan hal mar ku laabto marka maxaan ku dhahay intii hadda aan soo qornay hore oo hal mar ayada dhan la soo wada gelinayo markaas ayaa hal mar cashirka ka dhigaya insha Allah ta'ala waxaan leeyahay marka اللهم صل على محمد وحن سوق قادنا يا include عن لنا هاي input output stream using name space standard waxaan noo dhahdaa main halka markaan joogo variables caadiga ah ayaan iska declare garaysanaa waxaan leeyahay ka soo qaad inti x halkaas aan uga baxay taas waxaan leeyahay float y waxaan leeyahay double z saddexda variable hore aan u declare garayn equal meeshaan dhahay hadda ka reebaa qowta waxaan leeyahay jar xaraf waxaan leeyahay jar waxaan leeyahay tusaalaan ka soo qaado kaleeto waxaan leenahay stringi waxaan leenahay stringi waxaan leenahay stringi name ama magaceeda waxay dhahdaa almost intaan ugu filan lana meesha ay buuxsamaysaa way aan soo gelinay marka message waa in la marka hadda marka waxaan samaysanay process koobaad variable declaration waa sameynay qiimaha variable miyaa naqaana maya qofkan oo ogolaan inuu soo geliyo yaani variable kasta ma aha qiimihiisa ma ahan fixer ma aha constant ma aha kan kala constant iska ah constant ma aha waxa la qofka da'diisa oo kale soo gaarta inaad dhahay waxa rabta inaad dhahay qiimaha soo geliyo EVC ga soo geliyo walaal qof ama meesha isticmaalaya kuma malaayiin qof marka haraaga soo geliyo qof marka la haraagiisa qofka meeqa ku jiri karto qaarta inay xawisho qofka sabab ma xawilay $5,000 macna ama $5,000 ama $5,000 maxaan ku dhahay ma xawilay lacag macnaha ma la gelinayo lacag sideeda waxa la gelinayaa lambarka qofku random qof gelinayo qof aad gelinayo qof aad gelinayo wuxuu rabo gashan karaa ama dirham day ama dollar day ama xitaa marka meelaha la joogo xitaa way kala duwan tahay sintiyaal la gelin karaa hadda ka soo qaad qofka $1 oo jajabka aan rabin 0.5 gelin raba marka mar kastaba fixer ma aha variable ka qiimihiis waxa way kala duwan yihiin aan dhahna marka aan geliyo marka seen marka lahaa waxaan leeyahay marka soo bandhig waaye maxaan soo bandhignaa waxaan leenahay soo geli qiimaha
a ayaa waxaan leenahay x soo geli qiimaha x markaa soo geli qiimaha x iri halkan waxaan isticmaalaa marka gelintii aan isticmaalaa waxaan leeyahay x la gelinaa ko waxaan leeyahay haddana mar labaad soo bandhig fariintan ii soo bandhigo macnaha maxaan soo bandhignaa soo geli qiimaha y slash n inta new line ka rabo ii geliyaan leeyahay maxaan gelinaa waxaad gelisaa ayaan leenahay y geli soo bandhig maxaan soo bandhignaa comedy prompt yaa loo yaqaanaa marka tan soo geli waa waxbaa qofka la amrayaa qiimaha z geliyaan leenahay maxaan gelinaa ayaan leenahay k z ayaan markaan gelinayna x y z waan gelinay haye mar labaad soo bandhig maxaan soo bandhignaa soo geli xarafaan gelin doonaa waxaan leenahay geli xaraf geliyaan leenahay waxaan leenahay soo bandhig soo geli magac geli ayaan leenahay hadduu variables ay ugu qornaa waaye intaa markaan soo gelin ku sameeyo marka waxaa ii haray soo bandhigitaankii maaha marka intaa waa variable declaration wax commenti la dhahaa jiro oo ay ahayd inaan markii hore sii sharaxo commentiga waxaa waaye shaygan tii facebookga ma aha commentiga waxaa waaye shayga aan rabti inuu compilerka arkin ayaa loo isticmaalaa marka halkaa hore waa qeexitaan halkan hore waa soo gelintii processkii gelintii soo bandhigitaankii aan inta isticmaala marka soo bandhigii markaan isticmaala marka waxaan leeyahay soo bandhig hadda aysan samaynin oo kaleeto inaan dhaho qiimaha x equal slash t inaan dhahno x end line soo bandhig qiimaha y equal slash t oo aan ka rabo inay space ii baxdo waaye spaceka dheer ee bannaanka waxa bixinayo waa slash t waaye waa inoo dhe halkan end line soo bandhig qiimaha z equal space bixi slash t space waaye waan ku celinaa z end line waxaa inoo dhahdaa soo bandhig xaraf waxaad dhahdaa xaraf aad gelisay waa slash t meesha marka waxaad dhahdaa xaraf oo ah variable nameka end line soo bandhig magaca soo maahan magaca aad gelisay waa slash t magac end line intaasan samaynaa aan rangalaysana marka waxay noo dhahdaa marka waxaan qorino waa c in 1 waa yahay uu ii rangalaysmay fariintana ii soo baxday waxaan rabay wuxuu ahaa inaan helo fariintan fiiri marka fariintan hadda haysanaa waxaa la yidhi waxaad soo gelisaa qiimaha x waxaan gelinayaa 100 x qiimaheeda soo geli qiimaha y waxaan haysanaa jajabaa laga rabaa moogtahay 4.5555 soo geli qiimaha z 12.9 waxaas qiimaha iska gelgelinaa soo geli xaraf waxaan gelinayaa b soo geli magac waxaan gelinayaa xasan intaanu marka waxaan rabaa message ahaan hadda gelinta film qiimo processka koobaad soo geli wuxuu dhahay waxaad gelisaa marka koobaad qiimaha x geli
qiimaha x gelinay marka soo geli qiimaha x/n intan marka fiirisa intaas c awda iskale kana c ina iskale kan c awda iskale kana c mid kastaba waxa waaye si isugu xigaan bida inay meeshan gasho oo isugu c inka iskale lana compilerku wuxuu sugaa commandigaas asiisa ardada qaar waxay sameynayaan soo geli intuu dhaho c in raacinin soo geli commandiga dad waa inaad c in raaciso soo geli dhahdo xasan markaan raaciyo waa inuu ii soo bandhigo marka wuxuu yidhi qiimaha x waa 100 qiimaha y waa 100 kan waa soo bandhigitaankii wuxuu yidhi qiimaha x waa 100 qiimaha y waa intaan qiimaha z waa intaan xarafka aad gelisay waa b magaca aad gelisayna waa xasan marka meeshaas waxay ku filan inaan u kala raaciyo waxa uu message kala soo bandhigayo oon dhahno gelintii soo bandhigitaankii inaan dhahnay ficnaan lahayd marka taasna dhima lahan laakiin hadda waxa waa meesha marka waxay uga jeedaa sida ay noqonayso marka la geliyo waa ka gelintii waan gelinay waan soo bandhignay koorkeena quruxdiisu saas ayuu noqonayaa macnaha intaas inay fahanteen waan rajaynayaa insha allahu tacaala hal mar haddaan ku celiyo sharaxaadiisa waxaa meeshan inoo taalaan dhahnay variableskeeduna isku soo aruurnay waxaan rabnay inaan baranno sida loo qoro variableskaan declare garaysanay qiimaha waxaan rabnay inaan waxaan baranay sida loo isticmaalo in sida loo geliyo computerka ama enter from the keyboard daatada inaad keyboard kusoo gelin karto ayaan fiirinaynay marka inta x y z aan dhahnay xaraf magac hoos aan soo galay waxaan dhahnay soo geli qiimaha xaraf geli soo geli qiimaha y geli soo geli qiimaha z geli markuu keyboardku boodboodayo ama kaysarka la halka markuu boodboodayo kaysarka meesha cadka boodboodayso markaad programka ran galayso kaasi waa waxaa inuu boodboodo sababayo si intaan aasaabayso soo geli xarafku ku leeyahay soo geli magac marka intaa gelisid soo bandhigitaan kana soo bandhigeen qaybtaas intaasaan ku ekeenina marka waxaan rabaa inaan halka uga baxo maxaan ku dhahaayay database-kii booliskii hadduu noqon la database-kii bool iyo string iyo jar oo noo dhinaca cashirkeena hore ahaa in maxaan ku dhahaayay berri waxaan ka qaadan doonaa insha allahu tacaala arithmetic operators oo ah inaan samayno tusaalahaan oo kaleeto inaan soo gelin inaan isticmaali karo calculator tira soo geli calaamad geli dhag waxaasaan isticmaali doonaa insha allahu tacaala taasna cashirkeena berri waaye maanta intaasaan ku ekayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi